Assalaamu calaykum kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkan oon alaaba ooga warrami doono waxyaabaha aasaaska u ah qofka muslimka inuu ogaado. Qaybtan waxaan kusoo qaadanaynaa culumta quraanka oo u ah qof walba muhiim inuu wax ka ogaado. Dhowr xalaqo ayaan kusoo qaadanaynaa anagoo isku dayayna inaan soo qaadano waxyaabo muhiim u ah qofka muslimka ah barashadeeda, laakiin inta badan dadka aynan ka aqoonin quraanka. Barnaamijkeena waa hordhac kooban, waxaana kusoo qaadanaynaa tacriifta kitaabka quraanka ah iyo sababaha loogu bixiyay kitaab iyo quraanba. Waxaana inoo xigi doona barnaamij kale insha Allah. quraanku waa kitaab lagu soo dejiyay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam, waxaana laga soo dejiyay Allah agtiisa, waxaana soo qaaday Jibriil, waana hadalkii Alle mana aha makhluuq. quraanka waa kitaabka ugu weyn dhammaan kutubta, waana midka ugu dhameystiran, waana mid xifdisan oo uu ballan qaaday Alle xifdintiisa markuu yiri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafidun. annaga soo dejinay dhikrigan, annagaana xifdinayno. sababaha loogu bixiyay quraan iyo kitaab waxay tahay waxaa loogu bixiyay cadayn oo ay cadaynayaan in lagu xifdiyay labada wada ee kala ah qorid iyo akhrin. Jibriil ayaa ku gutay akhrin oo uu akhriyay nabigeena sallallahu alayhi wasallam, sidaas si lamid ah waxaa gutay nabigeena sallallahu alayhi wasallam asoo uu akhriyay asxaabtiisa, wuxuuna ku amray inay qoraan dhagxaanta, jirida timirta iyo wixii lamid ah. ilaa haddana quraanka labada ayuu ku xifdisan yahay, qoridda iyo akhrinta. halkaa inoo joogto qaybta koobaad, la soco qaybta labaad iyo qaybta saddexaad insha Allah.